السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano statistics-ka mean iyo mood, median iyo mood. Marka waxaan ku bilaabi doonaa difference-ga u dhaxeeyo. Tusaale waxaan soo qaadan doonaa tirooyinkan kala ah 10, 20, 30, 40, 40. Marka intaas oo tiro ayaan isticmaali doonaa si aan ugu isticmaalo tusaalooyin soo socdo. waxaan ku bilaabi doonaa waxa loo yaqaano mean. Mean waxa uu la mid yahay tirooyinka oo la isku daray oo loo qeybiyo 5. So marka mean waxa uu la mid yahay tirooyinka dhan oo ah 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 40. marka intooda oo la isku daray oo loo qeybiyey 5 maadaama ay yihiin 5 gud. So marka waa 1 2 3 4 5 gud waaye, marka waa 5 gud. marka 5taas gud ayaa loo qeybiyey. marka dhammaantood oo la isku daray oo 5 loo qeybiyey. markaasu dhanna waa 30 60 100 140. So 140 oo loo qeybiyey 5 waxay la mid noqonaysaa 28. So waa 28. So marka mean waxa uu la mid yahay 28. waxay noogu xigo waxa loo yaqaano median oo ah median waa midka dhexe. So median equals waa numberka malwalba dhexda ku jiro. So marka maadaama aan haysano 5 digits 5 gud, numberka dhexe waa midka 30ka ah, kaas ayuu noqon doonaa. labada dhinacan ay jirtaa oo ah 10 iyo 20, laba dhinac kale jirta ah 40 plus 40. marka qaabkaas ayay noqonaysaa. marka 20 iyo 20 iyo 40 iyo 40 iyo 10 iyo 20. marka midka dhexe oo 30ka ah waxaa noqonayaa medianka. marka haddii lacala ay dhacdo in numberka uu intaas ka duwanaado maxaa la sameynaa? tusaale ahaan haddii ay maxaa la dhihi jiray 6 gud oo isla eg ay tahay sida hadda 10 20 30 40 50 60. So marka aad fiiriso meesha waxaa yaala 6 digits 6 gud waa 3 iyo 3. markaan dhexda waa tiro isla eg oo dhaban ah. maxaa la sameynaa haddii ay sidaa dhacdo? haddii ay sidaa dhacdo waxaa la sameynayaa oo intana 3 ay aado dhinaca kalena 3 ay aado, labada tiro ee dhexda ku jirto dhexbartanaha u dhow ayaa la isku darayaa sida 30ka iyo 40ka ayaa la isku darayaa. kadibna waxaa loo qaybinayaa 2. 30 lagu daray 40 loo qaybiyey 2 waxay la mid tahay 35. So 35 ayaa waxay noqonaysaa median. marka waa midka dhexbartanaha. haddii tirada isla ekaato sidaas ayaa loo xalinayaa. aan u laabano tusaalaheedii hore. haddana markii aan tagno waxa loo yaqaano mood. moodka waxa uu noqonayaa numberka mar waliba 2 mar ama in ka badan soo laalaabto. numberka ugu badan ee soo laalaabto. marka hadda marka aad fiiriso tusaalaheeda waxaan haysanaa 40 oo 2 jeer soo laalaabatay. marka tirooyinka kale way ka duwan tahay 40 iyo 2 jeer soo laabatay. marka moodku wuxuu noqonayaa 40. marka guud ahaan casharkeena ku saabsanaa mean oo ah average. waxaa la dhihi average oo ah 28, median oo ah 30 iyo mood oo ah 40. intaas ayuu ku egyahay. marka mean waxaa lagu helaa tirooyinka oo laisku wada daray oo loo qeybiyey 5 ama numberka gud oo laisku daray loo qeybiyey inta gud ay tahay. median waa numberka dhexda ku jiro. moodna waa numberka ugu badan ee soo laalaabtay. waxaan filayaa inaad fahanteen. waa anigoo ah Dr. Shaafici Sharif Maxamed. هذا اللي هذا عشان كان هذا اللي